waxaa si weyn u sii baahaya khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira maamulada isku haya ka talinta gobolada Jubbooyinka, Gado iyo Shabeellaha Hoose xilli maamullo tiro badan loogu dhawaaqay qaar ka mid ah deegaanada hoostaga goboladaasi kuwaas oo dhammaantoodba sheegaya inay yihiin kuwa ku yimid doorasho ay dadka deegaanka sameeyeen inkastoo arrintaasi ay macno ahaan kala duwan tahay. magaalada Nairobi oo ah goob ay si weyn uga badan yihiin mas'uuliyiinta hogaamiyaha maamul goboleedyada Soomaaliya xilligan ka sii hana qaadaya ayaa waxay noqotay meelaha lagu qabto shirarka siyaasadeed ee isdiidan marka laga yimaado gudaha dalka. maamulada dooxada cagaaran Udubland iyo qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda Jubbooyinka ayaa waxay isugu yimaadeen kulan ay ku cambaareynayeen qarxii dhawaantan ka dhacay magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari taas oo khasaare nafeed geysay iyo shir dhawaantan lagu soo gabagabeeyay duleedka magaalada Nairobi oo urur goboleedku IGAD ay ku casuumeen waxgarad iyo maamullo ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka. madaxweynayaasha maamul goboleedyada Udubland Ibrahim Cabdullaahi Cadow iyo kan dooxada cagaaran Cali Maxamed Ibrahim ayaa waxay si wadajir ugu hadleen shirarkii dhawaantan urur goboleedka IGAD casuumadiisu ay lahayd ee Kenya lagu soo afmeeray iyo qaraxyadii dhawaantan ka dhacay magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari. awalan marka ugu horeysa inaan cambaareyno falalkan bariyahan ka socda dalka Kenya ee loo bartilmaamsaday meelaha macbudka ah. waa ogsoonahay diinteena ma dhigayso in dad cibaadeysanaya oo ahlul kitaab ah oo waxba galabsanin in meeshooda qaraxyo loo geysto. dhibaatooyinkan waxaa looga gudbi karaa mas'uuliyiinta oo diimanka hoggaanyaasha inay isku wada yimaadaan ay isfahmaan in shirkan lagu qabtay Karen in laga waantoomo siba gaar ahaan dadka u horseedahaya ee ku jira IGAD iyo deeq-bixiyaasha in qaar oo walaalaheena intay u wacaan oo intii kale ay khuseysay ee waaweyneed ay ka tagaan. saas wax kuma xalis maayo. fursad fiican baa jirta tala dadkoo dhan waa inay ka go'daa. maanta fursadda la haysto waa fursad qaali ah oo dahabi ah oo dhowr goor marar badan la soo gefay laakiin haddaanan laga waantoomin haddaanan hadalkeena la maqlin in arinta ay u noqon karto 1991 waxa waliba si foorximo ah aan ku tilmaamay wax shinimo ku tilmaamaya sida walaalahan oo dhaqameed inoo sheegeen dawladda Kenya oo ah dawlad daris ah noo fidisay gacan saaxiibtinimo walaaltinimo noo fidisay oo qaxootiyadeena maanta meel walba joogaan ganacsatada iyo nooc walba annagana mid xorriyad diini ah waliba aanan ku haysan tan Sacuudi Carabiga lagu haysan xataa aan ku haysano Kenya xorriyad iyo dimuqraadiyad xagga diinta waliba aan ku haysano in maanta shacabkooda aan waxba geysanin la halaago oo la gumaado waxaan anoo raali ka nahay maahan. shirkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya arrinkiis lagu hadlayay khaasatan Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose lagu hadlayay ee ka dhacay Karen Nairobi shirkaas waxaan oranaa mid baadil ah oo salka ku hayo nidaam qabyaaladeed oo dib u hanasho oo qabsasho ummad la marin habaabiye siyaasadeeda muddooyin dhan afduubnaayeen dulmi ku jiray haddana sidii loo qaybsan lahaa magacyo cusub loo baxbaxsaday. qaar ka mid ah waxgaradkii kulanka goobjoogka ahaa ayaa waxay ka cabanayeen in beelaha ay ka soo jeedaan la xaqiray oo xaqooda la duusiyay taas oo ugu dambeyntii sababtay in afkooda ay furtaan. aniga oo maxaa la jiray oday digil ah waxaanu cambaareynaa shirka oo maxaa la jiray shakhsiyaad gaar ah isa soo taabtay. aniga magacayga Mbero waxaan ku hadlaa codka Shanti Shambara iyo Mashunguli iyo Sauta ayaka dhulka u badan webiga ayaka u badan oo meesha degan walaalayaal mana shirkana daraad oo yani IGAD ay dhigtay waa shir oo dadkii oo deegaanka oo wada dhameen ma ahayn. shir lix goosood ah oo lagu dhexdhexaadinayo awoodaha xilligan isku haya gobolada Jubbooyinka marka laga yimaado awoodda hadda ka jirta ee xarakada al-shabaab ayaa 30kii bishii tagtay lagu soo afmeeray deegaanka Karen ee nawaaxiga magaalada Nairobi kaas oo heshiisyo buuxa ay si wadajir ah ugu wada gaareen dhammaan qaybihii ka soo qayb galay. Maxamed Cusmaan Xabiib, Royal TV, Nairobi.